السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدنا السلام مالي وناكسن سنين وناكسن ما أنت ومالتين ونقول نوجود بيسي لكن بعديها تاريخ وانكهايا هبين كوجو الرئيس أورتا was on fire عذاب عادي هيد الحمد لله حلا حوجا شري ولا قبصناي حالي جيف كو نوعنا ماشان ونين يجود كله ولا ما كلا قريو كلا دول كاسا دينا دغانaya ma fahanto sariir jacuzzi iyo barkin ma jiraan gacantada barkane qof kasta yaraantiis waa soo marin gacanta la barkado dhinaca dhulka la dhigto qurbuhu dadku waa ku dheelaa ma fahanto qurba joogto waxay u baahan yihiin sometimes markay arkaan inay nolol fiican oo mutakibir ay ku jiraan ma aragta hasle ina horta mahadnaq Allah horta ma bilaado jaamco alxamdulillah wa shukrillah qofka bila aadanka waxa la yiri nimcada ma arka ilaahay ka qaado ma fahanto so sariir ugu badan oo laga qaado maxay tahay oo 10 ka qaadad waxa kamida inaadan qabeys helaynin jiif fiican aad helaynin cuntada idoo tasqiyo ku jirta iska cunay ma faad maalinta hal mar ah cunaysa jikadan maalin kasta ma daarna fildijeer inta furata juice ka soo baxsanaysid ma jirto ma faad hadee baahi ku qabato waxa leedahay ya meel qorax oo hoos oo geed hoostiisa aska hoos fadhiisanay waa ku daynayo natural baayda biya cad hadaashid laakiin mid ay ku fiican tahay baadiyu waa kala yihiin meeshan the only things aan kaga helo waxa waaye biyaha way buuxaan hadaad rabto waa qabaysan kartaa laakiin shuqda galay ma fahanta meeshan musqul iyo shukumaan ku sunaya ma jirto shaambuun iyo ma jirto saabuun ma u baahnidba dhidid nadiif ah oo natural ah ka imaanaya wallahi skinkaaga is gonna be clean like never before amalno hadda ilmo dhasho kale aan noqonay alxamdulillah waxaabaha orta oo aad waxaabay aad u maleynaysan inay muhiim yihiin aad ogaanaysan inay muhiim ahayn sometimes waxa jir wax ay dadka magaalada joogaan in ka badbadiyaan nolosha u baahnaan waxaan ogaanay marka baadiyada timaad moogta baadiye marka imaatid qof kasta looguma talagelin you have to be qof baadiye corona balad corona maqli jirta so you have to be qof meel kasta ka soo bixin karo ku noolaan karo kaalaska aragtay hadda wax ku buuqaya ma laha shanqarta shimbiraha bisa maqlaysa ma fahanti chill stress free hadda maanta waxa waaye a walk in the park ala sameynaya intii la yiraahdo hodana waa taas hay meeshan park wuxuu geyn rabaa walaalkay ingila slide parkii guuyo ugu soo ruuxi rabaa kaalaska natural park shimbiro waxa ay ma maqlaysid qeel male sawaxan male ya waxba chemicalia soccer malaha meeshan natural wala ana waxaan dareemaa 2 days ma fikirino labadii maalin aan baadiya joogay even iguma soo dhicin in nolol iga dambayso that's very nice wallahi jaamaca I swear nolol ka dambayso waxaas fikirka dhaw ku goynaa meeshan the only thing I ka fikiraysid waa sida ku safaf garan lahayd waa meeshan maxaa asha karsanaa أنا سوود هوين دونا وراه مصودين دونا شيء كلام مسكحة جليس لكن طبيعي marka Yurub joogto maanta dhan waxaad ku fikiraysaa barnaamij aadan xalin karin absolutely maanta dhan waxa is leedahay ilaahayna yiri xataa ilowsiya aan isku dayna inaan qabano wallahi alxamdulillah horta meeshan survive mode lagu jiraa sida ku noolaan lahayd sida ku seexan lahayd waxa cun leedaad ka fikiraysaa busy aba taabo بالآدر هذا حمانين يا واحد سوق ترى ميزت يا بحمانة ورتلك ماشان جوال دبي والله ما قرأنا مرينا ورتو وحنا إنه هذا ما قبتان لجوزنا ما مقلان يعني قف أي حمانة يعني الملأ فهمت حن يا that's good والله إيه كذا أنا كلا كذا عندك هو مفيد ميز أنا شربت واتنا Yeah. Watch out. I don't ever go back to Sweden. Well, it has got Sweden. والله. ماشي قفك كوري يا رب قفك لك بيرتيس أدونكيس كوسيستا. عيالكيس عيالك إيمن ناتشرال waxay noqonayaan horta waxaad u sheegtaa wiilkii maaldoota oo amoorada nagu imaaday oo geeriyamada ahaa anigu yaro 17 sano jiro ka waran maalin dhan waxba ma cunayo waxa u dheer lo'da soo bixinaya 3 saacadood inuu soo hoyni
sababta loo soo ceeriyay iskuulka balo sheegay dadka horta waa 600 oo shilin Kenyaati ah iskuulka looga soo ceeriyay 600 inuu ka shaqeeyo loodaas ugu soo baxay cunugaas ka war 17 sano jira waaye sabdigi iyo xad loo raacaa iskuulka cuntada laga bixinaay iskuulka laga bixinaay ayagu la salaaxa iskuulka la geenaay waxbartaan kala ana wallahi waxbar iska leh macluumaadda maanta waxay leedahay sidee dareemaysaa xaaladda cuntada intii loo keeno wuxuu leeyahay cunugi maxaa la saxanka soo buuxsado iska daadinaya maba cunaanba waxa way eklik way waxa waa disgusting way waxaas cunto ma chicken araba kaas beef i keeneen wallahi billahi kaas lugaha uu qabsan aad meeshan keentidan ku dheer kiisa adag inta laga soo saaray kiisa adag laga soo saaray wallahi hadda wiilasha xaalad kale ilaahan ku dhaariya anagoo jiifno nimanka intee bax ka wara loo bixi ka wara wallahi ya rag baadiyo jooga asweer rag baadiyo jooga ragga TikTok ku jira ka warayga ragga magaalada waxa way waxay sameeyaan wallahi sulaalada ka uga qabsataa waxa rag maaha rag this is rag ya qofka dumarka xataa maxaa loo dhahaa ragga baadiyaha jooga dumarka waa disrespectayaan dumarka ma qadariyo ma dheereeyaan ha wallahi billaah ya bilcaanta hala siyaa lagu leeyahay bilcaanta ku bilaaba bilcaanta ilmaha lagu bilaabo insha hala seexiyo ya warniyo lagu ma ayna meesha naagaha laga ma aayo wallahi very respectful rag Soomaaliyeed asal fasalka halkani hodan hadda waa qofka kaliya oo meesha joogta iyada joodar ku saxatay kaliya xalay jacuzzi 5 star aan saxday ya rag waxay dhan anaga roobku dhibada nagu dhacda qofka dumarka meel fiican loo geliyo waa respect nuuci aan naqaanay dadka dhahayo Afrika gabdhaha waa la abuse ya waxa qurbaha ka tagay waxa ku dheelay dalka jooga wax dhinta waay disgusting والله نقدها والله أنا ننقل بتشوق ما بربي بعد قال جرا راتنا والله ما جوكت قال جرا ما بير جراس إنجراس معه والله قول السماء خير وجدان والله بدي أنا ليش سعاد يا هذا وهلني وأنا والله يريس وجبي قبواي ستريس فري دبات وحاسي لأن ما كيف فكريست يا ورصدح مالنا لما قبيسنا كنا صدح مالنا لما قبيسنا كنا وانا عمل أوسو شيرونا still no how life is going on because waxaan ogaanay qobayska wax ka muhiimsan in jirana ogaanay qobays iyo waxaas iyo karan iyo barfuun la isku dhadhaashay iyo barfuun $100 laga soo bixinayo wax ka muhiimsan meesha yaalo ninka meeshan jooga dad tira barfuun $100 ka baxsho qulaaba wallahi hada anagu barfuun isku buufina iska carfo hada wala qabsato Soomaaliya skin care hatta wallahi nadiif aan tufayna wallahi ninka meeshan jooga dad tira $100 barfuun ka bixiyo wuxuu ku leeyahay laba neef oo arma ku soo gadatid the good things is aaniyo fresh lafaha ku dhacayaan weliga ma gaboobaysid أنا لو حنون كوي إذا الموت روجي حنون أنا مركا إيماني روجي حنون بسم الله أنا جيل هذا لصالس أو حتى لصالس أنا جيل هذا لصالس أو حمبينا أنا بس كسيرة سجابة فيرا أو هذا وحنا لقى قاعدين لقى قاعدين والله بدأ كي وماتي ما قبل العقل أنكو صحت هذا العقل لقى قاعدين ما شاء الله free everything is free everything is free wax faktuuro ku soo dhacayso jiif laga ma qaaday lacagtiis faktuuro ma soo dhacday inta hare faktuuro free invoice dhan ma laha ha wallah dadku waxay dhaan moogta meel warqad ma ku soo dhacaynin ha meel aan ma taqaana bill aan jirin hadda qinta ima wax bill ku soo diraa mar ma fadhiga waa free jiifku koronto keen lagu dhahay koronto ma jirto that's nice wallah wifi ii gali waxaan fiir maroodo xarkiis waa fiiri fiir waxaan fiiri waxaan maroodo dhigay maroodo mir ka jara hal maroorkiis ka jara fiir daa socod fiir adiga maroodo xarkiisa ku imaanay ya this is the kind of life oo hadu maroodo cadana soo horbaxlaa wallahi bilaa noo ka xilaa ana maroodo saarnaa duubay Allah waa waa kori laakiin maroodiga India jooga rabaayad waa ku rabaayad ma kan waa ku dilaa kan rabaayad ma laakiin bas ma sha Allah fiir geedaha horta waxa waaye boqolaal sano iska dhisan yihiin ya amazing place waa meeshan shimbiraha bis hadaa aamusto xayr mujida waxaad dareemaysaa adduun wax walba waa degayaan freedom ka lagu sheegay waa kana meeshan lagu dhahay qof intee ku maad u dhahay meeshan waxa u joogtaa meeshan yaa deg ku dhahay lagu dhahay yaa teendada shidane
كلاب iyo music iyo balaayo iyo waxa ka saxameynaysa malaha Mombasa bamburi habeen saxamaa ku dhih wallahi hodana habeenkii dhan soo jeedano because dambi waxay ku galayaan ma walaha indhahooda